دكتور عبد الرحمن مؤمن maamulaha iskuulka dhexe hoose jaamacad dhalo macallimiinta dhammaan xildhibaanka dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xalfadan quruxda badan ay soo agaasimeen ardayda jaamacadda Jariban qaybteeda foundationka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaad ardayda soo agaasintay xalfadan garatay inay maamusaan maamulahoodii hore soona dhaweeyaan maamulaha cusub waxaan dhihi karaa waa fikrad aad u muhiim ah waa maskax fresh ah loo baahan yahay in lagu daydo maadaama ay wanaagsan tahay in hogaankii markaas cidii hogaanka ku ahayd aad maamustid si ay dhiirigelin ugu noqoto maamulaha markaas cidda bedelaysana ay ugu noqoto dhiirigelin ama ma taqaanaa in la jecel yahay uu arko waxaan kale oo aan dhihi lahaa haddaan taa ka gudbo sidaa wada garanaysaan kolba waxaan ahay gudoomiyaha ardayda jaamacadda Jariban dhammaanteed waxay si cod dheer iyo cod hooseba ku soo dhaweynaysaa maamulaha cusub oo ay leeyihiin waa kula garab taagannahay wax alla iyo wixii annaga arday ahaan nooga baahatid waxaan rajaynaynaa inaan noqon doono arday la shaqaysa la jaan qaada maamulaha cusub iyo qorshayaashiisa waxaan u malaynayaa halkaan hadda waxaan joognaa sanad iyo bar maadaama anigu hadda waxaan ka mid ahay ardayda IT-ga sanad iyo bar baa halkaan joognaa waa garan karnaa meesha aan ka soo bilownay iyo meesha hadda aan joogno waxyaalaha ugu badan oo hadda jaamacadda aan is dhihi karno ardaydu hadda ma taqaanaa way u baahan tahay maamuluhuna waa soo kordhin doonaa waxaan u malaynayaa oo aan u baahannahay waxay ila tahay waa xagga ma taqaanaa macallimiinta oo nagu yar iyo in ma taqaanaayo waxbarashadii insha Allah waan jeclaa inaan badan sii hadlo laakiin waqtigaaga dhamaaday marka waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin dhammaantiin waana qayb baan idin keenaya sidoo kale waxaan salaamayaa maamulaha macadka iyo dhammaan macallimiinta salaamaya alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baa ugu faraxsanahay waxa weeye intaas oo arday inay maanta jaamacadan ay dhiganayso annagu waxaan ahayn ardadii 2015 ka qalin jiray secondary schoolka niga raal ahaada maamulaha jaamac aad baa u salaamayaa maamulahayga hore run ahaantii aad baa u qadarinaya abaal weyn oo u haya annagu waxaan ahayn secondarygii waxa weeye ragga ka qalin jabiyay 2015kii oo waxa weeye markaas jaamacad ma lahayn Jariban waxa uu aynay Boosaaso oo markaas waxa weeye haddii ay jaamacadda lahaan lahayd run ahaantii fursad bay noo ahaan lahayd laakiin ilaahay mahadiis waa ku faraxsanahay in hadda waxa weeye ay jaamacad yeelato marka ardada kalena waxa ku boorin lahaa inay waxa weeye si fiican wax u bartaan anigu waxaan soo bartay bachelor BBA haddana waxaan rabaa inaan ka sii wado xaggan baajkii labaad inaan ka wado xaggan jaamacaddan waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulihii hore oo waxa waaye wax walba bilowgooda aad ba u dhib badan yihiin dulqaad badan buu sameeyey ardadana heer wacan buu soo gaarsiiyey abaalkiisa waxa weeye ma gudi karno ilaahay ha ka abaalmariyo sidoo kale waxaa soo dhaweynayaa maamulaha Cabdiraxmaan maamulaha soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow insha Allah waa la shaqeyn doonaa xaflad maamulihii horena lagu saagotinayo maamulaha cusubna lagu soo dhaweynayo ma rabo inaan inidaahiyo waxaan laba kalma dhahayaa ardada jaamacadda Jariban waa inaad xoog saartaan duruusta la inii dhigayo waa inaad ka dhabaysaan ballanqaadkii halkaan ay ka sheegtay Barliin oo ahaa inaad
la shaqayn doontaan maamulaha cusub si uu u tayeeyo jaamacadda fakultiyada furan uuna u dardargeliyo fakultiyada kale oo dhiman inuu dhammaystiro inaad taa fulisaan waxaan ardayda ee jaamacaddan dhigata kula dardaarmayaa assignmentiyada in qof waliba contribution ku darsado oo aysan dhicin groupka inaan qaar ka soo shaqayn assignmentiga ama contributionkooda markii team loo baxo maxaa dhacay waxaa la rabaa researchers inaad noqotaan inaad dalkan iyo dadkan wax ku soo kordhisaan farxad weyn bay ii tahay jaamacaddan inaan anigoo musharax u ah xildhibaan dawladda federaalka Soomaaliya aan galabta in la joogo farxad iyo qiimi weyn bay ii tahay waxaan u rajaynayaa maamulihii hore oo shaqadan qiimaha la soo qabtay ilaahay inuu khayr iyo ijaabo siiyo waxaan kaloo u rajaynayaa maamulaha cusub mudane Cabdiraxmaan in isagana ilaahay uu gaarsiiyo guul la taaban karo oo taabagelisa jaamacaddan inay noqoto jaamacad standard oo gaarsiisan meel aad u sareysa waxaan ku soo gabagabeynayaa kelmad ku saabsan electionka waa inaad tanbiihina si fiican u dhageysta dhalinyarada reer Jiribanay 1960 ilaa 69 ku dhawaad 1969 markii dawladda militariga qabsanaysay degmadan waxay lahayd laba xildhibaan xildhibaanada Soomaaliyeena waxay ahaayeen 120 maanta oo 275 aqalka hoose yahay xildhibaan ma haysato waxa xildhibaankiina kala dhaxeeya laba xildhibaan oo beeshu leedayna kala dhaxaysa dadka soo jeeda 8 degmo oo 6 degmo ay ahayd degmooyinka hore Soomaaliya oo beeshu degto iyo laba Puntland ku dartay iyo dad inaga oo fara badan oo caalamka atraaftiisa jirta taas marka maxaynu ka gudbi karnaa inaad dhiiri galisaan in laga gudbo barnaamijka 4.5 election xor ah loo gudbo waxa la rabaa jaamacadda Jiriban si gaara contribution gaara inaad galisaan in registration program loo gudbo waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay idmo waan xilka ku guuleysta anigu barnaamijka inaan xoog saaro dekedeedu u soo faaxayso gudoomiye Cabdiraxmaan wuxuu ka yid boorama waxa la garanayaa waa ka gees waxa la garanayaa jaamacadii Camuud inay wax badan qabatay Soomaaliya u qabatay jaamacad Soomaaliya leedahay inay tahay waxaan qaraynaa jaamacadda Jiribanna sidaas oo kale inay noqon doonto waxaan rabaa marka inta waa dekadii waa dhowdahay in la dulqaato aad baan ugu mahad celinaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa waxa fiican oo niyadu ku haya inuu helo taasaanu maaragtay ugu ducaynaynaa waana u mahad celinaynaa maanta shirkan quruxda badan ka qaybgalkiisana waa qadarin weyn bay nagu haysaa xildhibaan haddaad soo baxdid waxa ila taa ballanqaadkii waa maqlaynay laakiin xildhibaan kasta oo noo yimaada markuu wax rajaynayana wuxuu yiraahay faala wuxuu muujiyaa micnaha uu ku jecel yahay inuu wax soo hoynayo sheegayo hadduu naga tagana maba aragno marka hadda waxaanu rajaynaynaa imaatinkaagana inaan hadda ka aragno jeebka gacanta gelin doonto sababtoo ah meeshii laga bahalkeeyay waatan aad baan kugu mahad celinaynaa waan ku soo dhaweynaynaa ilaahayna kula garab galo meeshan waxa weeye ma sha Allah baan leenahay ku soo dhawaada hadee waana maqlaynay oo dadkana xusay oo yiri boorka hal nin aan ka maqla waa jaamacad dhalo wuxuu yaqaan qaabta maamulka marka waad mahadsantihiin anagu boorkii baana sida la sheegay aad baan idinku mahad celinaynaa gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa haddii Rabbi yiraahdo shaqadu waa qori isu dhiib haddii Allah idmo adigana waxaan ka rabnaa haddii Rabbi yiraahdo iyo aniga oo kale iyo cidii nala mid qof walba meeshii wax loogu dhiibay insha Allah ayadoo ka fiican oo ka quality fiican oo ka dad fiican insha Allah in haddii Allah idmo qori isu dhiibkaas maalintii la gaaro haddii Allah idmo insha Allah inaan sidaan oo kale si sharaf leh
ayadoo waxqabadkaagii muuqda inaan kuugu soo dhaweyno waxaan kaloo rabaa inaan kuu ballan qaado sidii guddoomiyihii hore baan ula shaqayn jiray inaan kula shaqayno haddii alla idmo wax alla wixii gacan ah oo aad nooga baahan tahay noocay doonaanba ha ahaadeen insha allahu waa kugu soo dhaweynaynaa insha allah waana kula garab taagannahay dhammaantiinna waa idin salaamayaa hadalkii Richard waxa weeye qof waxbarasho ma sahlana way adag tahay yaana ka gudba qof adag baa ka gudba qof walbo goortii ilmahaaga waxbarashada aad u soo diraysid wax adag inaad u diraysid u sheeg asagu markuu baranayo wax adag inuu baranayo ha ogaado macallinka wax dhigaya wax adag inuu dhigayo ha ogaado haddana in la fududeeyaa la rabaayo qofku wixii uu ku talagalaa kuma adkaadaane insha Allah ku guuleysta Allah naga dhigo marka koobaad waxaan salaamayaa marti sharafta ugu horeeyay waxa weeye xildhibaanku iyo waxa weeyaan marti sharafta qiimaha leh inala joogta ee uu kamid yahay maamulaha dadka oo dhan ama reejariin oo dhan maamulaha waa sida la sheegay iyo waxa weeyaan maamulaha macadka iyo dhamaan macallimiinta waxa weeyaan jaamacadda iyo waxa weeyaan dhamaan institutionada ka jira magaaladaba aad iyo aad baan u salaamayaa soo kale waxaan salaamayaa ardayda quruxda badan ee waxa weeyaan xafladan soo agaasimay ee waxa weeyaan sida quruxda badan loo fadhiya iyagana aad iyo aad baan u salaamayaa si fiican ii soo dhaweeyay waxa kale oo si gaar ah u salaamayaa waxa weeye guddoomiyihii hore ee jaamacadda Mr. Saciid oo waxa weeye wax qabadkiisii iyo dadaalkiisii iyo waxa weeyaan kartidiisii halkan lagu soo gaaray ayaan isagana waxa weeyaan aad iyo aad u salaamayaa waxa kale oo waxa weeyaan uga mahad celinayaa soo dhaweyntii aniga way soo dhaweeyay iyo waxa weeyaan xil wareejinta sida wanaagsan ee waxa weeyaan uu igu wareejiyay wax kasta oo gacanta ku hayay iyo wax kasta oo waxa weeyaan jaamacadda uu qabtay oo aniga igu wareejiyay waxa kale oo mahad celinayaa waxa weeyaan gudida jaamacadda oo runtii iyagana aan xalay isbaranay oo xalay kulanay iyagana waan u mahad celinayaa waxa weeye ka soo qaybgalka inagala soo qayb galeen kolay maanta waxaan jeclaa waqti inta ka badan inaan isku helno waxoogaa waan ardayda si gaar ah ula hadlo si guud aan ardayda dhamaantood ula hadlo waxa weeyaan dadka martidana aan la hadlo laakiin taas si suurto gelmayso wata eedaankii baa lagu dhufanayaa marka waxaan u sheegayaa ardaydii halkan soo istaagtay ardayda qaarba waxay ka muujiyeen waxoogaa inay waxa weeyaan codsi ama wax soo jeediyaan waxaan ballan qaadayaa dhammaan ardayda kalaasyada dhigata oo dhan inaan arday walba kalaaska ugu tagi doono haddii Ilaahay idmo oo si gaar iyo si guud baa ula kulmi doono haddii Ilaahay idmo oo waxa weeyaan caqabadaha idin hor taagan iyo waxa weeyaan waxyaabaha idinka dhiman iyo waxyaabaha aad u baahan tihiin intaba waxa weeyaan idinka dhageysan doono haddii Ilaahay idmo waxa kale oo ku dari lahaa maanta meesha aynu taagannahay aynu maanta joognaa waa jaamacad dhismaha aynu maanta taagannahay iyo qalabka aynu ku fadhino iyo waxa weeyaan iyo dadka marti sharafkeena la jooga intaba waxa u yimaadeen waa maxay waa ardayda sharafta leh meesha joogta waxa loo dhisay dhismaha inta leeg ee dadka muslimiinta dibadda jooga wax u soo bixiyeen dadka gudaha joogaana waxa weeyaan idin garab taagan waa idinka anu waxaan booramo uga yimid waxa weeyaan halka u yimid oo Richard uga yimid Kenya idinka weey marka waxaan doonayaa wax yar in dareensiyo muxuu ah mas'uuliyadda waxa weeyaan ina saaran ee la inaga rabo inaan fulino haddii Ilaahay idmo kolay hadalkayga maanta waa iska kala baro intii aan ugu talagalay ka gaarsiin maayo ka waxaan u sheegayaa waxa weeye ardayda sharafta leh mas'uuliyadda ina saaran ee la inaga rabo haddii Ilaahay idmo ayaa waxay ka weyntahay waxa weeyaan buurahaas ay ka weyntahay maanta waxa weeye dhismaha la inoo dhisay iyo agabka la inoo keenay iyo dadaalkan la garab taagan yahay waxa la inaga rabaa inaan ummadda wax u qabano waxaan filayaa amba sida la sheegay waxa weeye waxbarashada jaamacadda ku haysataan iyo qalabka jaamacadda ku haysataan intaba waxa la idinku keenay free ardayda jaamacadda dhigata free bay wax ku dhigataa dhulka Soomaaliyeed amba waxa weeyaan Soomaaliya dhamaanteed ma jirto waxbarasho free iyo waxa weeyaan ardaygu haysta ma jirto maanta marka chance-ka aad haysataan inaad ka faa'iideysataan oo waxa weeye jaamacadda aynu ka dhigno jaamacad tayada waxbarashadu aad u sareyso oo aad heshaan chance ah in dhammaan jaamacadaha waddanka ku yaala aad kula tartami kartaan aqoonta waxa weeyaan kan aad ka qaadataan marka waxa idin ballan qaadayaa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxa ugu weyn ee waxa weeyaan aynu qaban karnaa waxa weeye waxbarashada halka aad ka helaysaan inay noqoto waxbarasho tayo leh jaamacadduna inay noqoto jaamacad maadaama waxbarasho waxa weeyaan tayo leh aynu doonayno inaan hirgelino markaynu hirgelino waxbarashada tayada leh dhammaan gobollada Soomaaliya oo dhan waa la inooga iman doonaa waayo ma jirto waxbarasho free marka waxaan doonayaa inaad culays badan iyo mas'uuliyad badan ay saartaan haddii Ilaahay idmo
si aynu uga gudubno waxa weeyaan caqabada oo aynu u gaadhno amba aynu u fulino amba aynu u xaqiijino hadafka iyo waxa laynaga doonaya haddii Ilaahay idmo marka hadalka intaas ku soo koobi doonaa runtii waan jeclaa inaan waqti dheer idin la hadlo ardayda gaar baan ula kulmi doonaa haddii Ilaahay ardayda foundationska gaar baan ula kulmi doonaa ardayda foundationska waxaan ugu talagalay haddii Ilaahay idmo inaan u diyaariyo program waxa weeyaan levels kala leh oo levelada markuu ardaygu soo dhameeyo uu u soo gudbi karo ardaygaas marka soo dhismo ardaygaas uu u gudbi karo jaamacadda haddii Ilaahay marka arday kastoo meesha jooga levelka doonto waxbarashadu ha ahaatee waxaan isku dayaynaa inaan jaamacadda dhexdeeda kugu dhisno oon ku gaadhsiino levelka waxa weeyaan jaamacadda markaad arday jaamacadda la qabsan kara aad noqoto deeto marka jaamacadda aad saa ku bilaabi doonto haddii Ilaahay idmo marka hadalkayga intaasaan ku soo koobayaa